boqosyaashaan shalay keenay iskuulka طبعا iskuulka isku diyaar rabnaa waa kana waxaan u fiirinaynaa joornaalkayga caadiga routiinkeena maasha Allah joornaal subaxii waxaan jeclahay inaan markaa qaxwadii cabaa ama waxa aan cabaa joornaal inaan fiirsado aan akhristo maadaama ay yaalin joornaal oo carabi oo ahayn kana iska soo qaatay waxyaabaha yaryarootiga oo ku qoran inaan iska akhristo waxaan aan ka jeclaado inaan soo qaato soo gato joornaal carabiyaan dhageysan jiray subax kasta miiska la saari jiray intii dadka loo keenay akhrisanin anaa akhrisan jiray kadib aan u geey jiray waa caadi koobkayga shaaha ama qaxwo ama wax walba ay noqoto oo cabayo joornaalkaan ku cabi jiray dabiicadayda saas ah geedkaan aan rabaa inaan explain kareeyo routiinkeena ku jirana وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات وأعناب وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له wuxuu sheegaa geedka biyaha roobka ama barafka markuu jiro طبعا guri markuu basement uu leeyahay biyo iyo biyaha waxaas kana ii sheegaa saacada kana hadda 70 jiro fiican yahay hadda 70 ka koreeyo daaqmiis waxa waaye guri biyo oo leeyahay biyaha marka kana uu qaayo humliga iyo muriyaaga waxa deebiga qoyaanka maadaama dhul oo ku yaal kana ka ilaalinayo biyo hadda aan daadinayo inta ka baxay xagga ku jira caaga aka أصحابي سأركتين روتين كنا ما أنت واقع إن شاء الله وحبذنا عنا إنانيش أنت وحشيجين هرت كوب كيجا يا كوب كيجا كتورنا إن شاء الله بإذن الله كدب أني explain مركزنا كنا maanta maalin oo aad u fiican maasha Allah waaye khaasatan anaga shaqadeenno waxaan ku faraxsanahay inaan gurigeena joogno maasha Allah aad ugu faraxsanahay soo dhawaada idinkaan laga rabaa wuxuu yahay inaa sheegtiin maasha Allah inuu iska akhrisanaa inta qaxwada ka cawaay subaxii guriga aan joogo waxaan jeclahay saan u sheegay boora inaa wax iska akhristo joornaalka caalamka wax ka dhacay joornaal maadaama aan haysanin joornaal kana iska akhrisanaa markaas oo fiirinaa adaan wax ugu baahanahay inaan gadano aan baxno suuqa aadno oo kale insha Allah أنا لا وكنا ما شاء الله المهم مرة إهد أنا كرا حوجا هجاجنا وحنا سكتوسينا ولا هاي كبار عمرك وداعي أيه ما شاء الله وكا استكر قرية وحيو كجران هذا 10 دولار دكسي ولا كجران هكا خفوا دكسي سوق كجران waxaan ka bilaabeynaa kana boqosyaasha iyo iskuulka aan ilmaha u dalbay طبعا iskuula soo dhow
waa inaa iyo aniga waxaan jeclahay inkastoo aan soo daahay waxaan jeclahay inaa iyo isdiyaariyo iskuulka hal bil ka dhimanyaanba inaan isdiyaariyo alaabaheyga waxayga soo gato meel iska dhigto diyaar leeno waxaan ahay qof oo aad u busy ahaan ahay marka hadhoodii orodna ma jecli leeno haddaan orod wax kusoo qaato waxaan rabo dharkaan rabo ma helayo marka tartiibta takes time laakana dharka iskuulka ilmaha dabcan waa kuwan maasha allah waa kuwan surwaalada aan soo dalbanay waa kuwan maasha allah waa kuwan surwaalada aan u dalbaday uniform waa dabcan uniform noocaan lagu aadaa iskuulkeena marka hadda waxaan rabaa insha allah finaanyaalka ii dhiman inaan soo qaado surwaalayaasha waa iga dhammaadeen boxkaana furaynaa boxyaashaana furaynaa waa fiirinaynaa waxaan u dalbay maasha allah waa kana kaamil waaye buugga waxay laga rabay isoo kaamil ah iyo macal boxkiisa maasha allah good saan u dalbaday sax haddana boxkan weynkaan fiirinaynaa let's see maxaa ku jira inta alaabta iskuulka kaamil alaabta iskuul oo kaamil ah maasha allah kana oo samaacadaha kan maxaa ku jiran okay let's see what's inside boxka intan alaab kale extra waaye wuu iska fiican yahay oo guriga laska dhigto maasha allah koofiyaasha waa ka alaabihii iskuulka oo dhan waa kuwaay intaan waaye maasha allah weli waxyaabo kalaa dhiman laakiin halaha oo aan horumarsaday oo muhiimka ah oo iskuulka la furo waxooda dhan diyaar wixii kala dhow gadaalaan ka keensanaynaa dhib ma lahan alaabta iskuulka intaasay noogu ekeed kana waa kor dhexda aan dhehe kii haddaay hoosuu ahaay humilitida oo hoos kana waa mid kalaan soo gatay kor waaye dhexda waa isagana saaloonka iyo meesha saaloonka la fadhiisanayo waaye asagana hal xab ixtiyaaj waa kaay biyihiisna xaggoo ku jiraa kan new waa kaas old yuu ahay kan waa cusub yahay dabcan ma ogeen awal mar dhow waan soo ogaaday waa kaay guriyaasha dhan waa u baahan tahay air fresh oo kuu keenaa markay qabowaha jiraan guryaha oo derbiga oo naqanayo kuyaan oo kaa ilaalinaa aad u fiican yahay geedkan ma aha kaligiis qofka oo azmada qabo ama neefta qabo ama allergiga qabo kaligiis ma aha dadka dhan u fiican yahay guriga wuxuu la soconaa inta oo waxa uu yahay khaleel ama inta uu qoyan yahay dust mite-ka iyo bustada waxyaabahaas dhan oo ka controla khaasatan biyaha waa kana saacadooyinkan oo waa soo gadanay asaa kuu sheegayo
hadda kii hoos kan isku mid ma aha kan hadda kan waxa waaye kuleelka iyo qabowgu sheegayaa guriga halaha u yahay kanna waxa waaye biyaha guriga qaleel miyaa ama qoyaan miyaa darbiga uu sheegayaa kii hoos 70 oo ahaa lino dhaxda hoos basementiga waaye laakiin kan waxa waaye dhaxda waaye salonka waaye markii oo kor la soo koro wuxuu sheegayaa 65 that means oo fiican yahay between oo wuxuu fiican yahay 40 ilaa 70 oo fiican yahay mar hadduu 70 ka kor maro biya guriga ka buuxo haddoo 60 ama 40 ka hoos marane guriga khaleel way dry asxaabteena maanta ma sha Allah routiinkeena intaas uu ka akay insha Allah biidnillah maanta aad yani soo daanis waxaan wax mani soo gelinin maadaama oo guriga aan joogno waa lis dalcinayay tabcan saa arkaysiinba shaqo ma la jirin guriga la joogaa maalintii lis dalcinay maalintii hagaajinta maalintii nadiifta maanta oo khamiis ay tahay bir waa ogtin jimco waa jimcihii anaga wax ma qaban ciid aynu taa farxadeen waaye ma sha Allah videogan video lamid ah insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته